السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنجل channel official like and subscribe and share قصدين كيني بندح جرينا تحناها أيام تذكر هذا وان اسكا مشغولي شقويني وحاسي هولا حق جيجا هولا ومشغولي مركا شيكاديه تحناها وان جوجيي مركا هادان دب ugu soo noqonay caawa waxay nooga bilaabmaysaa qisadii ahayd la magac baxday fal xaasidnimo iyo hagardaamo waa saaxiib ama qof aad jeceshahay dhageysi wanaagsan waa magac yimaado oo ka dhasha fal xaasidnimada falkeeda ayuu ka dhashaa dhageysi wanaagsan la socod wanaagsan oo loo adeegsado qof lilaahi ah waa fal ka dhasho xaasidnimada oo loo adeegsado qof lilaahi ah oo daacadnimo u qabo qofka daacadda ah ayaan weli ku jirnaa xaasid waa laba qof waa qof xaasida iyo qof daacad ah adiga oo lilaahiya qofkaas oo ku yiraahdo qofkaas oo wax waliba uu ku yiraahdo oo aad moodayso daacad inuu ku yahay adigoo moodaya inuu qofkaas daacad ku yahay adigana aad u tahay daacad wabilaahi bismillaahi raxmaani raxiim calaamadaha lagu garto maxay ay tahay calaamadaha lagu garto qofka khaa'inka ah maxay tahay calaamadaha lagu garto wuxuu jecel yahay inuu kuu adeegsado jacayl beena hadduu uu yahay nin uu ku shukaansanayo gabar iyo wiil tahay jacayl dhex maray ama haddee tahay laba qof oo saaxiiba markaste wuxuu u adeegsanayaa jacayl been ah saaxiibka iyo labada qaas isku jecel oo shukaansiga ah ama ninka iyo naagta ama guur waxyaalo badan buu u sheegayaa matal haddaan soo gaabino wiil iyo gabar ayaa jecel gabadha ayaa waxay tahay daacad wiilkan wuxuu yahay beenlow oo waa khiyaamaya markasta wuxuu leeyahay insha allah qaali waa isguursanaynaa insha allah xabiibi waan ku jeclahay macaanta waan ku jeclahay haddaan kusoo doonaya waan ku guursanaya gabadhii run bay moodaysa isna ma jecla wuu khaa'imaya number 1 waata ama laba gabdhood baa saaxiiba mid baa daacada midda kale ayaa waxay tahay xaasidaysa oo been u sheegaysa markasta waxay leedahay tan daacadda waa iska daacad tan beenta ah oo khaa'imada ah oo xaasidada ah oo khiyaamaysa waxay leedahay waan ku jeclahay walaashay waxaan kugu abaalgudo ma garanayo wanaagaaga waxa aan ku sameeyo ma garanayo wax aan ka qaban karo wax kasta naftayda adaan ka horumarinayaa macaantay waan ku jeclahay xabiibtay waan ku jeclahay waa labada gabdhood oo saaxiibada sida oo kale labada wiil oo saaxiibka ah mid daacad hadduu yahay midka kalena uu khiyaamayo saaxiibow waa ku jeclahay abaal baad igu leedahay nafsi sidii oo kale abaal baad igu leedahay abaalkaaga ma gudi karo walaalkay qaaliya wuuna khiyaamaya oo been buu u sheegaya waa taas calaamadaha lagu gartaan marka aan gelinaa la socod wanaagsan waxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto qofka daacadda iyo qofka daacadda ah qofkan lagama mari karo waxna loogama sheegi karo wanaagiis unbuu arkaa kan kale oo iska dhigaya oo saaxiibka ah na wuxuu xumaanta qofka kale u arkaa kan daacadda ah ma kan kale xumaanta u arkaa waayo waa xaasidnimaa ku jirta kana waa lilaahi iyo laqdamana meel ma wada galoon gabadha saaxiibadeed ah mid laba gabdhood ayaa saaxiiba sheekada waxaan rabaa inaan qodob kasta kor istaago laba gabdhood ayaa saaxiiba midi waxay sameynaysaa waa daacad dircay gadata dirceeda usoo gadaysaa kun shilin hadday haysta kunka bay xasiinaysaa noo kala goobay leedahay xabkoobka biyaha noo kala qayb waa kala qaybsanayoon wax kasta tan daacadda xaggeeda waa naf iyo maalba waa u horeysaa tan kale walaashay baa tahay qaali baa tahay waa qofka khaa'inka ah waan ku jeclahay abaalkaaga ma gudi karo haddana wuxuu gadaashaadu ka marayaa gadaashu dhabarku kaa tooganaya taasoo ah
xaasidku waa labaytamo wajiile, wajiyo badan buu leeyahay, ma agara kartid. marka uu kula joogo uurka wuxuu ku wataa wajigii madowga, korkana aragtida kore oo adigu kula joogo aad arkaysin wuxuu ku tusayaa aragti wanaagsan iyo wajigii fiicnaa quruxda badnaa ee greenka ahaa tagta saarnaa wanaagsana. wuxuu jecel yahay xaasidku ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado, wuxuu jecel yahay dhibaatadaada, wuxuu jecel yahay lugooyadaada, wuxuu jecel yahay markasta uu ku farxaya dhibaatada aad ku gaartaa. qofka ku jecel markasta wuxuu ku farxaa wanaagaaga, wuxuu ku farxaa aragtidaada, wuxuu ku farxaa wax kasta. waa cakis sida qofka xaasidka ah oo ku tusaya inuu walaal ku leeyahay oo dadka adiga mooyaan cid kale uun aaminsaneyn. wuxuu ku tusayaa kan qofkan xaasidka ah wuxuu ku tusayaa waa Angel Channel official, like and subscribe and share ka iloobinina please and please. qofka xaasidka wuxuu ku tusayaa inuu waji fiican adiga xagaaga ku tusayaa, laakiin isaga ma aha inaad wuxuu jecel yahay khasaaradaada. haddaad ganacsi tahay wuxuu jecel yahay inaad guursan oo reer yeelan, haddaad reer leed inuu reerka kaa furo jecel yahay, hadday gabar tahay ninka inay kugu dirtay jeceshahay, hadday aragto ninkaaga inaad jeceshahay oo lagugu diri karin waxay isku daydaa ninka inay shukaansato gadaashaada ka wareegto. haddii ay wanaagaaga may ogola ama wanaagaaga mu ogola. qofka xaasidka ah horumarkaaga way dhibaysaa, waxbarashadaada iyo aqoontaada way dhibaysaa, kartidaada iyo tallaabooyinkaaga way dhibayaan. markasta wuxuu ku fikirayaa ku shaqaynayaa sidaad hoostiisa uga hoosoo lahayd uu kugu weersan lahaa. waa qofka xaasidka. laakiin qofka wanaagsan wuxuu isagu ka fikiraa sida uu naftiisa ula jecel yahay buu saaxiibkiina ula jecel yahay. heer nolol tahay nolol buu la jecel yahay. ganacsato hadduu yahay ganacsi uu saaxiibkii samaysto la tartamo oo garabkiisa soo istaago jecel yahay. wax kasta uu la jecel yahay, nolol buu la jecel yahay, reer buu la jecel yahay, mustaqbal buu la jecel yahay, everything buu la jecel yahay. laakiin xaasidkaaga ma jeclo. xaasidkaaga waayo I don't know, ma walaalkaaba, ma saaxiibkaaba, ma walaashaaba, ma adeerkaaba, ma abtigaaba, ma taqaanid. ma saaxiibadaaba, ma ninkaaga, ma naagtaada, ma taqaanid. waayo walaalka marka lagu sheegayo maaha kan aabbahay hooyada dhaleen, waxay noqon kartaa abtigaa madu dhalay, adeerkaa madu dhalay. horaan uga soo hadlay mid habrirtaa dhashay, mid adeerkaa dhalay, mid eedadaa dhashay, mid qaraabadaada faamiligaaga waa noqon karaa. mid hooyadaa iyo aabbaha dhaleen waa noqon karaa. ad adigu filin horumarkaagii noloshaada dhibayo. saaxiibka waa noqon karaa, saaxiibadaa way noqon kartaa, naagtaada way noqon kartaa, ninkaagana waa noqon karaa. marka maxaa lagaaga baahan yahay si dheelitiran inaad adiga u socotid, si dheelitiran oo qurux badan inaad adiga isku qiyaastid. waxaa la yiri biyo waa la qiyaasaa laakiin bini'aadan lama qiyaasi karo. markasta qof kasta anigu waxaan ugula tali lahaa aragti ahaan inaad qof kasta adiga aad isxakamadaysid waxaan ka wada isqiyaastid. waxaa la yiri hore mahmaayaa waxay ahayd haddaad qof jeceshahay aashaa jeclow necbaa doontine allaa og. haddaad qof necab tahay aashaa necbow jeclaa doontine allaa og. god walaal ha qodin, haddaa qodina ha dheereen, ku dhici doontide allaa og. waxa weeyaan qofka aad jeceshay aashaa jeclow, caqligaaga ku dar, ha isdhiibin, wax kasta ha sameyn. saaxiibka ama saaxiibada take care full ka qaado. gabarey saaxiibada iska ilaali, wiilow saaxiibka iska ilaali. saaxiibkaaga aada u jeceshahay isna uu ku tusayo inuu aada kuu jecel yahay, labadiina never midba aada daacad u ah midka kale waxbaa ku dhex jira. marka hala digtoonaado, fiiro dheerna hala yeesho. waa Angel Channel official. sheekooyinkeeni taxanaha ahaa ayaa noo bilaabmay, musalsaladeeni baa noo bilaabmay, sheekooyin kala badanna waa soo wadaa.